maadaama dastuurka uu ku jiro dib u eegis waxaan rajaynayaa in lagu xallin doono arrintaas oo aqalka sare la siin doono awoodaha uu u baahan yahay in uu sameeyo korjoogtaynta uu ku mateli karo danaha dowlad goboleedyada. ugu dambayntii su-aashaa jawaabteeda ugu dambaysa waxaan codsanayaa u dayn doonaa guddoomiyihii guddiga isagaa jooga nasiib wanaag oo faahfaahin doona arrintaas sida wax looga qabtay iyo kaalintu aqalka ka ciyaaray iyo hadda kadib siday noqon doonto. intaana ku wareejin waxaan kaloo rabaa inaan ka jawaabo su-aasha khayraadka dalka. khayraadka dalka markii ugu horreysay sharci ka mida sharciyadiisii oo ah sharcigii batroolka ayaa hadda golaha yaalla. isfaham guud oo ah khayraadka batroolka sida loo qaybsanayana waxaa lagu soo go-aan looga soo gaaray magaalada Baydhabo oo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka iyo madaxda laanta fulintu ay ku soo gaareen heshiis hordhaca. wixii marka kale arrintaas nagala gudboon maadaama lagu jiro marxaladii samaynta iyo curinta sharciyadii khayraadka waxaan rajaynaynaa in arrintaas kaalinta aqalka uu ka soo dhalaali doono oo si hufan u mateli doono danaha dowlad goboleedyada. khayraadka dalkana uusan ku koobnaa doonin sida aad sheegteen xarunta dowladda federaalka oo keliya, laakiin loo qaybsan doono si waafaqsan dastuurka oo hadda weli ku jira dib u eegis welina ku meel gaara. marka waxaan filayaa aragtidiina ku saabsanna waxaan rajaynaynaa inaan heli doono adinkoo soo marsiin doona mudanayaasha in ku matala aqalka sare. aad iyo aad aa umahadsan tihiin. arrintii su-aashii hore gabagabadeeda waxaan rabaa inaan ku wareejiyo senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole maadaama isagu uu ahaa guddoomiyihii guddigaas si uu faahfaahin dheeraada arrintaas kaga sii mahadsantihiin. sida uu ka sheekeeyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo aqalka sare mudane abshi bukhaari broceskii ay soo martay khilaafkii kismaayo ka soo bilaabay sanadkii hore 2018 oo wufuudda loogu kala diray aqalka sare maamuladii stateskii oo maamuladii xubinta ka ah dowladda dhexe tabashooyinkii waaga halkaa ka soo baxay horuntii la isu soo ururiyey anuu tii halkaan guddigii halkaan loo soo diraan baan ku jiray madaxda ka ahaa xildhibaanadii markaas jiray oo haddee xildhibaanada aqalka golaha wakiilada puntland konton baa cusub laakiin raggii hore joogay oo saadiq hadda hadlaya ka mid yahay oo aan la kulannay guddiga joogtada markaas waad xusuusantihiin iyo dowladdii xukuumaddii hore iyo ururada bulshada intaba aan la kulannay xogtii la ururiyey markii laysu geeyey oo laysugu geeyey xamar oo aqalka sare guddiyadoodii la ururiyey guddi kale aan la magacaabay oo dhexdhexaada oo guddiyadii laga soo saaray aaday goobihii stateska loogu tegey oo xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ah guddigaa dhexena anaa madax ka ahaa xukuumaddan la xiriiray iyaguna guddi bay saareen xukuumadda ka mid ah markii aanu wada hadallay wixii aan isla garannay oo cabashooyin ahaa kuwa kala gaargaara oo la kala lahaa iyo kuwa caamay ahaayeen intaba markii la isku ururiyey wixii aan isla garannay oo yidhaahdeen objection kama qabno inay saa yihiin golaha sare wuxuu ka soo saaray qaraar go-aan ah oo lagu faafiyey warbaahinta xukuumadda loo gudbiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha golayaashana la siiyey idinkuna aad aragteen saan filaayo oo halkaan loo soo diray in lagu dhaqmo adigu muddo unbaa waxa iska jir jiray khilaafiyo haddana aan tafaasiishooda dib aanan u gelgelayn laakiin go-aankaas waa soo dhammaaday xukuumadda markay isla aqbalay xukuumaddii golihii wasaaradda raggay u saareen iyo guddiga iyagii arrintaasu waxay ahayd shirkii dhowaan halkan lagu qabtay oo garoowe
oo isugu yimaadeen madaxdii stateska iyo dowladda dhexe halka markay isugu yimaadeen inay taasu dhammaatay ahayd cabashaduna badanaaba golayaasha sharci dejinta ma ahayn wuxuu ahaa xagga maamulka baa kala cabanayey wixii haddaaya laga hadlayey oo mudanayaasha golaha wakiilada labada nin oo ka hadlay ay taabteen waatii khilaaf ka dhacay laakiin wixii waa taagan yihiin lagama heshiin laakiin go-aankii weli waa taagan yahay arrintaas oo dhanna waa khuseeyaa dhaqaaluu khuseeyaa dastuurku khuseeyaa doorashooyinku khuseeyaa amniguu khuseeyaa wada shaqaynta guud buu khuseeyaa waxoo dhan buu khuseeyaa weli arrintaas waa taagan tahay waxaan rajaynayaa in caqliga saliimka intuu shaqeeyo ay dib la isugu soo noqdo mar kale iyadoo maslaxa la soo sifaystay oo laga shidaal qaadanay maanta wada joogga halka ay wada joogaan golihii wakiilada oo puntland meeshaan ay maanta joogaan golihii shacabka guddoomiyaheeda iyo xildhibaano ka socda golaha shacabka iyo aqalkii sare iyo oo isagana xildhibaano ka socda senatoro ka socda iyo guddoonkiisii eerka ay wada joogaan in maanta daahfurkaas cusub oo ay u bilaabmay xeer dejinta labadii heer oo heerkii federaalka iyo heerkii kale in fulintana oo saasoo kale noqdo dib la isugu soo noqdo waa la isqabtaayo carab iyo labadan baa isugu dhow isqaniinaan wax la isku diidiidaa jira waktigu waa ciriir waa soo dhowaanaysaa doorasho ka hor in laysu yimaado oo wixii la kala tabanaya la sameeyo oo doorashada soo socotay lagu wajaho iyadoo quluubo isu furan yihiin meelaha weli dhiman oo maamulada aan weli doorashadu ka dhicin oo galmudug iyo jubbalandna si nadiifa oo xor iyo xalaalah baa dadku yidhaahdaan sidaa inay ku dhammaato faragelin dowladda dhexe ka madax bannaan cid saddexaad oo international ayaan faraha gashan ee dadka loo dhaafo sida dastuurku qabo cid walba go-aankeeda inay samaysato iyadu gaadho sidaas in loo dhaafo oo sidii doorashadu halka uga dhacday puntland oo kale ay ku dhammaato insha allahu tacaala taasaan rajaynaynaa markaasna waxaad mooddaa inta kale xogaayadii jira khilaafka ahay qaarkood ay xushan yihiin khilaafyada xaggaa ka jira qayb ka yihiin marka labadaas meelood markay soo dhammaadaan baan rajaynayaa in laysugu soo noqdo dib aqalka sarena guddigiisii weli sidii buu jiraa waana joogaa marka dambe oo laysu imaanayo sida yaanta dhawe kale inayan dhicin baan rajaynayaa oo door qaato oo isagu ahaado qayb ka mid ah oo joogta meesha lagu wada hadlaayo oo executiveku ay ku wada hadlayaan saasaan rajaynaynaa ila isagaa wakiilka ah maamuladii waxaan kaloo aan inkastoo yan su-aal ahayn oo saatir abshir garaad oo meesha taabtay anugu waxaan u qaadanaya inay su-aal tahay iyo dardaaran golaha wakiilada ay soo jeedinayaan oo ah inayan dhicin doorashadii 2016 sidii dhacday oo kale oo muddo jiitamaysay in la sameeyey golo la yidhaahdo madal oo sharci dejintii ama xeer dejintii booskoodii gashay halkoodii gashay ayaantaas aqalka sare ma jirin anigu markaas oday ahaan waaba ka hadli jiray aad baan uga hadalnay laakiin waxbana kama dhegaysan waa la jajoobay nasiib wanaag aqalkii saraa soo baxay maraykan waa jiraa dowrkiisu qaadanaya idina waa joogtaan waana ka hadlay anugu haddeen madax badan baan u sheegay ma dhici doonto annagoo nool in la jajoobo oo intay isu tagaan maamuladu executiveka ay qaataan dowrka xeer dejinta inay qaataan ma dhici doonto waa ka dagaalamayna taasna waynu ku bishaareynaa dowrka ayaan qaadanayna insha allahu tacaala waana mahadsantihi su-aasha ugu horeysa xildhibaan cawil waxay ku saabsaneyd in golaha sharci dejinta ama golaha shacabka ee baarlamanka iyo xukuumadda ay isku milmeen waxay la tahay dastuurka soomaaliya ama dastuurka ku-meel gaarka ah wuxuu kala xadaynayaa labada awoodood ama labada hay-adood awoodahooda baarlamanka waa hooyada dhalay xukuumadda waxay la tahay shaqaa ka dhaxayso teedii kalena wixii brograama loo ansixiyey ama shaqo ah oo loo dhiibay oo lagu aaminay baarlamanka ayaa loogu talagalay in uu kula xisaabtamo xukuumadda marka sharciyan wax isku milmi kara ma laha
habacsanaan way iska jiri kartaa oo idinku waa dareemaysaan baarlamaanka maanta baarlamaan xisbiya ku fadhiya ma aha 275 xildhibaan waaye golaha shacabka markaan ka hadlayno 275tana xisbiya kuma imaan oo xisbiya uma fadhiyaan waxaa laga yaabaa maalinba dhinac inay badato dhinaca kale oo badnaa berrita uu isbeddel uu ka yimaado arrinkaas marka waxay ila tahay in isku milmid aanay jirin laakiin afkaarta ajenda haddii la keeno markaa laga doodayo laga yaabaa in ajendahaasi dhinac u bato dhinacna dadku ay yaraadaan laakiin isku milmid wax la yidhaahdo sharciyan mana jirto mana isku milna oo weli annaga waxaan u taagannahay hawshii dastuurka noo dhiibtay inaan qabanno xildhibaan axmed arrinta ku saabsan dastuurka arrinta ku saabsan dastuurka kumeel gaarka ah waxay la tahay bulshada soomaaliyeed in muddo ay naga sugaysay in dastuurkaas la dhammaystiro oo uu noqdo dastuur rasmi ah oo ay leeyihiin soomaali ay leedahay laakiin muddadii loogu talagalay wuu ka daahay haddana wuxuu ku jiraa dib u eegis dib u eegista hadda uu ku jirana annaga oo dhan mas-uuliyadda naga saaran dhinaca baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa jira guddi isku dhaf ah oo guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka la yidhaahdo iyo guddiyadii kale oo madax bannaanaa oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan dastuurka ayagana marka mar walba doorkiina waa muhiim mar walba dastuurka waa inuu halkan yimaada aqalkan dhexdiisa yimaada la dhegaystaa taladooda dastuur la iska ansixin karo oo ayadoo uusan soo marin dowladihii xubno ka ahaa dowladda federaalka aan la soo marin la ansixin karo ma jiro haddii la ansixiyana waxay la tahay dastuur loo wada dhan yahay ma noqonayo taas dastuurka waa sidaas arrinta kaloo ku saabsan oo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo ay ka hadleen senator farole ay ka hadleen ayaan rabaa inaan idin ayido oo ah labada gole sida idinkuba aada sheegteen wixii madmadooba dhexdooda ku jiray wuu ka baxay arrinta ku saabsan doorashooyinka waa run marka 2 sano iyo bar la shaqeeyaba kadib waxaa isbeddel uu ku yimaadaa hay-adihii loo xil saaray inay yacni tawjiih iyo ay siiyaan maxaa la yidhahdaa siyaasadda meeshay aadayso iyo ama nooca doorasho dhacaysa inta lagala wareego dad kale oo markaasi iska samaysmay magac kasta halahaadeena ay go-aano ka gaaraan waxay ila tahay baarlamaanka federaalka ah diyaar uma aha in sharciga doorashooyinka waad akhriseen dastuurka qodobka 47 markaa fiirisaan baarlamaanka ayuu siinayaa in uu soo diyaariyo sharciga doorashooyinka marka doorasho oo qof walba la weydiiyey qof walba waxaan ka wadaa institutionada dowladda ama ha noqdeen dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ama ha noqoto baarlamaanka labadiisii aqal waxay noqon doontaa mid lagu wada qanacsan yahay doorasho lagu qanacsan yahay 2021 soomaaliya inay ka dhacdo insha allahu tacaala waxaan juhdi weyn ku bixin doonaa in habacsanaan dhinaca naga anayn ka imaan ka baarlamaan ahaan aadan waasantiin